السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta casharkeenu wuxuu noqonayaa haddii adiga oo suuqa jooga oo cid isaf dhaaftaan isla markaana ay naftaada doontoyna waxay la geliso ama dhibaato soo gaarsiiso oo uu doono inuu ku riixo markaa laabta saakaaga dhufta gacanta waxaad isku dayaysaa marka koowaad waa ku riixayaa imaad filanayay labaadku shaa ku celi gacanta saaraya si qabsanaysa gacanta ku soo haday isbaarka ku samaysaa kadib furtaaba ka dhigaysa wada leexinaysaa kadib talaabada ku guuraysa horta ama ku dhacan waad ku dhufanaysaa fren intaasaad raacaysaa iminkana waxaynu geli doonaa iyada oo practical ah si aad u aragto una fahamto in yar kadib soo dhawow marka koowaad inuu saxiixo iga soo dabagoolayo labadaas ku riixaaga jaanisku ku jira tusaale ahaan marka koowaad uu riixay ama koowaad labada tahay markaasaan qabanayaa kadib gacanta aan ku dhufanayaa sandaruuqa dabadeed madaxiisaas noqonayaa saamarka noqdo gacantiisu halkaa ka saaraya dabeetee sidaasaan kujiraya saamarka ku jira soo jireeya markuu dhacamo ku dhufanaya labada taas sidoo kale uu yahay